Thank you very much. لعبت أنا كسيني لعبت إلى دستي زباط. waa muuqaal argagax leh oo laga soo duubay gabar caan ka ah baraha bulshada taasoo lagu magacaabo Rayaan Bajaaj oo jirdil uu ku socdo. Dhacdadan ayaa ka dhacday magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya. Afar tuuray ayaa lagu dhuftay oo laba kamid ah ay agagaarka baarka tahay. Rag isku jira Soomaali iyo Kenyan ayaa jirdil ugu dhaqaaqay gabadha. Muuqaal qaraacan ah oo laga soo duubay waxaa ka muuqda dhibaato aad u xoogan oo loo geystay haweeneyda ilaa ay dadka qaar ay moodeen in ay dhimatay. Si dhab ah looma oga ilaa ay hadda sababta loo dhaawacay Rayaan Bajaaj, laakiin ayadoo isbitaal ku jirta waxa ay sheegtay in ay arrintaani tahay mid shirqool ah, faahfaahinna iminka aysan ka bixi karin ilaa laga soo qabto dadkii ka dambeeyay falkaas. Dadka qaar ee kaaga dhow Rayaan ayaa ku waramaya in dhaawaca gabadhaasi uu xiriir la leeyahay arrimo isku qabsi lacageed ah, sidaasna lagu shirqoolay Rayaan Bajaaj. Hase ahaatee ma jirto ilaa ay hadda faahfaahin rasmi ah oo laga helay Rayaan Bajaaj iyo qoyskeeda oo ku saabsan dhaawaca arxan darrada ah ee Nairobi loogu geystay. Falkaas markii uu dhacay waxaa la tilmaamay inay goobta gaareen ciidamada booliiska ee dalka Kenya ayagoo baaritaan ku wada cidda ka dambaysa falkaas aan fariirka leh ee loo geystay Rayaan Bajaaj. Hase ahaatee weli ma jiro wax war oo ka soo baxay booliiska iyo hay'adaha dambiyada ee dalka Kenya oo la xiriira dhaawaca loo geystay Rayaan Bajaaj. Muddooyinkii dambe magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya ayaa noqotay meel si weyn loogu dhibaateeyo Soomaalida degan ee nolosha u raadsaday gudaha dalkaas. Meelaha ugu daran ee dilalku ka dhacayaan waa meelaha ay ku nool yihiin Soomaalida sida Islii oo ah xaafadda Soomaalidu ay ka degto magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya. Maalmo ka hor ayay ahayd markii dabaqa Didi Balasa lagu dilay wiil dhalinyaro ah kaasi oo dilay nin madow ah. Ilaa ay iminkana ma jirto cid soo qabatay ninkii falkaasi geystay oo goobta iskaga baxsaday. Sidoo kale bishii la soo dhaafay waxaa magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya ka dhacay falkii ugu bahalsanaa ebed kadib markii meydkooda Nairobi si gaar ah Bankland laga wada helay hooyo iyo gabdhaheeda oo la waayay. Dhacdadaas ayaana keentay in ganacsatada Islii ay joojiyaan ganacsiyada ayagoo dhigay banaanbax ay kaga soo horjeedaan arrintaasi oo u muuqatay isirsafayn ka dhan ah qoyskaasi. Hay'adaha amniga ee dalka Kenya oo tilaabo qaaday ayaana xabsiga dhigay nin lagu magacaabo Hashim Dhaqane oo ku eedeysan dilka dumarkaasi iyo dilka xaaskiisa iyo 3 carruur ah kuwa uu ku wada dilay dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya. Baaritaano ayayna ilaa ay hadda ku wadaan booliiska dalka Kenya. Hashim Dhaqane oo loo haysto gumaadka dumarkii lagu qaarijay xaafadda Bankland ee magaalada Nairobi. Si kastaba ha noqotee waxaa sii badanaya walaaca bulshada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya kadib markii ay bateen shirqoolada, dilalka iyo weliba isku dayada kufsiyada la xiriira ee loo geysanayo dadka Soomaaliyeed ee qaxa ka ah dhibaatooyinka nololeed ee ka jira Soomaaliya. Safaaradda Soomaaliya ee ku taala dalka Kenya ayada ilaa ay hadda lagama hayo wax damqasho ah oo ay u sameysay dadka Soomaaliyeed ee lagu dhibaateeyay magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya oo ayadu ay wakiil uga tahay ka warqabka dadkaas dowladda dhexe ee Soomaaliya.